kulanti wacan wanaagsan daawadayaal meel walba dadweynaha aad ka joogtaan kusoo dhawaada barnaamijka maxaa cusub oo kala socon doontaan wararkii ugu dambeeyay ee dadka caanka ah ee Soomaalida iyo adduunka. Waxaynu ku bilaabanaynaa qadar tacsi ah. bahda Somali World waxay halkan tacsi tiiraan leh uga dareysaa walaalkeen DJ Subeer oo walaashii Jamiila ku geeriyootay dalkaas Sweden bishan gudaheedii. Waxaan leenahay Subeer iyo dhammaan ilma xirsi Ilaahay u naxariisto marxuumada samiri iimaan sadaqana ha idinka siiyo. Inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun. dhanka kalena DJ Subeer waxa tacsi u diray asxaabtiisii xagga fanka kuwii ugu dhawaa oo ugu horeyso Nastaxa Indho, Nimca Dareen, Safaan Halac, Ismaaciil Danan, Tufax Darajo iyo qaar kale oo badan. fanaanada caanka ah ee Ugbaad Aragsan ayaa beenisay inay leedahay wax page ah kadib markii pages badan oo been abuur ah magaceeda lagu furtay oo waxyaabo aan raali ka ahayn fanaanadu lagu isticmaalo. Ugbaad ayaa hore uga aamusnaan jirtay waxyaabaha la soo dhigay pageskaas, balse markii kala tageen Qamar Suugaani ayaa badanka pageskaas la furtay laguna bilaabay mixnad si likes badan iyo followers ay ugu helaan dadweynahaasi. gaar ahaan hadda markuu aqal galay fanaanka Maxamed Wardi ama Qamar Suugaani hadba sida aad u taqaanaan ayaa waxa la bilaabay in la soo dhigo aflagaadooyin isdaba joog ah oo lagu aflagaadeynayo xaaska cusub ee Qamar Suugaani ee Nasriin Sooraan. xagga kuwa kalena la soo dhigay hambaliyo tiyo laga dhigay inay Ugbaad Aragsan tahay mid hambaliyadaas diraysa. haddaba dadweynahaas waxaan ugu baaqaynaa inay arintaas ay ka laabtaan iskana joojiyaan xumaantii wadaan, waayo Qamar Suugaani iyo Ugbaad Aragsan shalay calafka ayaa isku daray. calafkoodii markuu dhamaadayna way kala tageen oo mid walba nolol gaar ah ayuu sameystay. mana wanaagsan wax walba in mixnad iyo xumaan laga dhex raadiyo oo si qaldan looga faa'iideysto magacyada dadka. Ugbaad Aragsan oo horey uga hadashay arintaasna waxay tiri: inta samaha jecel iyo inta wanaagga jecel labadaba waan salaamayaa, laakiin inta xumaanta jecel baan mar oranayaa. xumaan waxba lagama faa'iido. horaaba loo yiri xumaan way lagama buuxshe, xumaanta iska daaya, wanaagga ku dhaqma. qofka bilaadana waxaan idin ku codsanayaa inaydan qofka bilaadana magaciisa aydan xumaan ku isticmaalin. warniyo ilmaade reyaal waxa jira dad intay samaystaan Facebook magac qof ku samaystaan walibana aan wax khayr la ku sameeyay karin, afkiisa ka soo bixi karin, sheegayo oranaya. dadkaana iyagana mid baan leeyahay, walaalayaal iska ba samaysto oo laakiin bal siyaaba qaldan oo isticmaalaysaan iska daayade. oo inaad armaahmaahba waxa tiraahdaa ku mashquulka qeyrka qorshe dhaama baa jira inta qof bilaadana magaciisa ku maalin baa dhagax dhigaysaan bari dhig maanta dhig saatan bari kuri baa dhisan lahayd inta qof bilaadana magaciisa ku mashquulsantiin inta xumaanta u isticmaashaa magaca qofka bilaadanka qof kasta bahaada aniga ahaado qof kala ahaado xumaanta u isticmaasha ee qofka inta magaciisa ku qoratay haddana xumaan u isticmaalaysa. waxaan leeyahay walaal maalinaan maanta hayn baa dambayse ilaahay ka cabso iska daa oo kulliba magaca qofka samaysatay wax khayr la ku isticmaalno. aradamay maqashaa wad fahantaan u malaynaya. wareer idinkaan idin weydiiyay arrinta dadka inta Facebook samaystaan qof magacii walibana ka saacaytamaya ma aflagaadooyin ama waxyaabo khaladaad oo fiicnanaya maxaa leedihiin asxaabtayda? bal wax ka dhaha. aad baan idin salaamayaa, waan ka sii baxayaa insha Allah. waa inoo mar kale kulan dambe oo xiiso leh asxaabtayda. wallahi aad baan idin jeclahay, qalbigaan idinka jeclahay dhammaantiin meel kasta joogtaan. intii xanuunsan Ilaahay ha caafiyo, intii caafimaad qabta Ilaahay ha ugu wado. aad baan idin wada salaamayaa dhammaantiin noolaada. balanteenu waa guul. aad baan idin salaamayaa. xidigaha fanka Carbeed ee Nancy Ajram iyo Taamir Xusni ayaa ruuxay caasimadda Masar ee Qaahira, halkaas oo ay ku qabteen xaflad ballaaran stadiumka Qaahira oo ay ka soo qayb galeen dad gaadhay 100,000 oo taageerayaasha xidigahan ah oo kula caweeyay xuska maalinta jacaylka Afritoonka February. xafladan ayaa sida la sheegay ah xafladii ugu ballaarneed ee Masar loogu qabtay xuska jacaylka sanadihii ugu dambeeyay, maadaama Masar ay tahay dalka ugu dadka badan ee Carab. fanaanada Lubnaaniyada ah ee Elisa ayaa iyadana Dubai habeenkii xuska jacaylka kula caweysay kumanaan ka mid ah taageerayaasheeda, iyadoo halkaas uu soo bandhigtay heesaheedii ay ugu jeclaayeen kuwii hore iyo kuwii dambe. xidigada Bollywood Shraddha Kapoor ayaa soo jiidatay indhaha kamaradaha bandhiga usbuuca xaragada ee Lakme, halkaas oo lagu soo bandhigay dharka samarka. Shraddha ayaa dad badan ku ammaaneen sida ay ugu heelan tahay ilaalinta deegaankeeda, iyadoo ku labsanayd dhar laga sameeyay maro iyo caag dib loo isticmaalay oo dhar loo bedelay si qashinka looga yareeyo deegaanka. dharkaasna waxaa sameeyay shirkadda Pankaj and Nidhi ee India.
haddaba daawaday si aad nagu xidhnaato fadlan taabo subscribe iyo gambaleelka si aanay ku dhaafin muuqaaladan idiin soo wadno sidoo kale ku xidhnow bogaggan ku leenahay baraha bulshada ee Instagramka, Facebookga iyo Snapchatka.